bismillahirrahmanirrahiim. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. kusoo dhawaada kanaalkeena daraja official. Mar walba soo dhigna muuqaalo xiiso badan iyo sidoo kale sheekooyin aad u xiiso badan iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah bulshada. haddaba maanta waxaan idin haynaa sheeko la magac baxday kurba adduunye iyo kadeed caashaq. haddaba qaybtii koowaad sheekadii xiisaha lahayd ee kurba adduunye iyo kadeed caashaq. qaybta koowaad ayaan markaasi gudagali doonaa. sheekadanna waxay markaasi dhexmaraysaa wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Farxaan ku nool magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. qaybta koowaad ee sheekada haddii aan dul marno, nolosha ma aha mid markasta ku timaada sida aad rabto, waana mid dhibaatadeeda wadata. hami kasta oo aad leedahay lagama yaabo in aad si sahlan aad ku gaarto, balse dadaalaa wuu gaaraa. jaceylka oo noqday kan dad badan ay ka cawdaan ayaa dhinaca kalena ah mid ay noloshu ku dhisan tahay. Farxaan waa wiil dhalinyaro oo hooyadiisa la nool, aabihiina uu ka dhintay dagaalada sokeeye kadib markii madfac uu kula dhacay gurigooda oo ku yaala isgoyska baar u ah ee magaalada Muqdisho. Farxaan waxa uu in muddo ah hami badan ugu jiray in uu ahaado nin isku filan oo baahida reerkiisa dabooli kara. waxa uuna lahaa dukaan xaafadeed oo gurigooda kaga furan, wuxuuna juhdi badan u geliyey in uu nolosha ku guuleysto. wuxuuna ganacsigiisii gaarsiiyey heer dukaankiisa noqdo mid aan laga waayin wax walba, iyadoo dadka xaafadda la deganna ay oran jireen waa supermarket daboolay baahideenna. Farxaan dadaalkiisu waxaa ka dambeysay hooyadii Boolo oo dhabtii kaabi jirtay wiilkeeda oo iyada kaliya ehel uga joogtay. waa dhalin iyo hamigoodee. Farxaan waxa uu in muddo isha ku heeyay Fartuun oo ay xaafaddu wada deganaayeen, isla markaana sheekada isugu imaan jireen. Farxaan abid kalama hadlin Fartuun xaalkiisa iyo sida uu yahay iyo sida uu iyada u dareemayo, balse waxa uu hubay in maalinteeda ay imaan doonto, isaga oo weliba kalsooni fiican nafta gelin jiray oo uu qabay in maalinta aysan Fartuun cayrin doonin. wale laba kala baraday kala warla. Fartuun maalmahan laf ahaanteeda waxa uu calankeeda saaran yahay Anyaale oo ah wiil ay school private wada dhigteenna, isla markaana aad ugu hela lahaa saawida dumar. Fartuun jaceyl aan xad lahayn ay u qaaday Anyaale, haddana waa ay ku dhici weyday in hamuunta ay qabto ay u sheegato, waxayna markaan go'aansatay in ay talo ka soo doonato Farxaan oo ay aaminsanayd in uu yahay qofka kaliya ee sirteeda xafidi kara, isla markaana ay ku kalsooneyd. waxayna galabtii markii ay iskuulka ay ka timid ay akhbaartii dukaankii Farxaan oo xilliyada uu aad mashquul u yahay markii ay soo gashay aragtay sida uu mashquulka u yahay, ayaa kursi meesha yaala isaga fariisatay. Farxaan oo arkayay ayaa weydiiyey waxa ay u baahan tahay, una sheegtay in ay isaga arin ka leedahay. Farxaanna waa uu riyaaqay, waxa uuna u sheegay in salaada maqrib kadib ay u timaado. sida ayaa ayna yeeshay oo ay gurigeeda ku noqotay. Fartuun reerka waa gabadha ugu yar, aabaheedna shirkadda dhoofisa xoolaha nool oo gacanta khaliijka iyo Sacuudiga geysa, waxaana iyada lagu og yahay in xagga waxbarashada xooga ay saarto. guriga cid howl kaga tirsatana ma aysan jirin. waxayna markaa waxbarashadu u aragtay in ay ku caajistay, hami guurna waa uu galay. waana tan keentay in Anyaale uu aragto in uu yahay kii ay nafteeda ku aamini kartay. maskiin Farxaan waxaasi uma sabirna, mana qabo in uu Fartuun ay bad kale ku jirto. wax badanna waa uu weydiiyey arrinta oo ay ugu socoto, wuxuuna sabirtay in iyada ay biyo dhaceeda cadaysan doonto. wale faraq iyo shimbir war iskuma hayaan. haddii weli Fartuun jaceylkeeda helin, waxaad moodaa in Aamina Sahra ay ka nasiib wanaagsaneed oo ay ugu dambeyn aqbashay jaceylkii uu u soo bandhigay saaxiibkeeda muddada dheer ah ee Sadiiq Xaaji. Aamina Sahra waa gabar Soomaalinimada ay ka muuqato, sidoo kalena aad loogu yaqaano xaafadda Edmonton ee waqooyiga London ee cariga UK. waana gabar wax ka baratay Southgate College. waxay xaafadda Edmonton ay timid iyada oo aad u yar kadib markii reerkeeda ay ka soo carareen dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya halakeeyay. waxayna xilligii dugsiga sare Edmonton Country School ay ka dhiganaysay ay saaxiibtinimo caadi ah kala dhexaysay Sadiiq oo ay isku fasal ahaayeen. ugu dambeynna maanta xiriirkooda uu sidii kasii xoogaysay, waana kuwan maanta jaceylkooda
isu sheegtay isagana aqbalay. Sadiiq isaga oo waxbarashadii wax kaga haray dugsigii sare wuxuuna taa u yeelay in uu shaqaysto, wuxuuna hamigiisa ahaa sidii reer uu maamulo oo uu ku filnaado uu ku yeelan lahaa. Waxayna isaga iyo Aamina Sahra ku heshiiyeen in ay isguursadaan marka ay college-ka dhammayso. Aamina Sahra reerkeeda oo bari hore Mareykanka u guureen waa ay kasii warhayaan xiriirka Sadiiq iyo gabadhooda, waana ay soo dhaweeyeen dooqeeda. Sadiiq waxa uu dhararayay guurka Aamina Sahra waayo si xad dhaaf ah ayuu u jeclaa. Aamina goor hore ayaa ay gashay qabanqaabada guurkeeda maadaama ay hore usii go'aamiyeen in xilliga kulaylaha uu aqalkooda dhaco, sidoo kale usii caleemo saartay meesha ay bisha malabka ah ay ku qaadan lahaayeen. Dhinaca kale Farxaan salaadii maqrib markuu uu soo tugtay waxa uu isu soo diyaariyey in uu Fartuun la kulmo kana wardhowro waxa ay sito. Fartuun oo dhag la qabto lahayn markiiba dukaanka soo gashay. Inta uu hooyadii ku yiri waan soo yara noqonayaa ayaa uu Fartuun meel aan dukaanka ka fogeyn la fadhiistay. Markii uu warka bilaabay Farxaan oo la hadlay Fartuun ayaa waxa uu yiri haya Fartuun, maxay tahay arinta caawa ku gashay ee aad doonayso in aad igala hadasho? Fartuun oo in ay hadasho aad ugu baahneed ayaa markiiba la soo booday. Farxaanow, waxaa tahay wiilka kaliya ee xaafadda ku nool ee aan ku kalsoonahay. arinta caawa isoo gashayna waa mid qalbigayga uu ileeyahay. Farxaan oo kaliya ayaa ku xalin kara. Farxaan waxa uu ku yiri dhibkaaga waa dhibkayga, ii sheeg halkee dhibka ka haysta aan kula xaliye. Fartuun waxa ay ku tiri Farxaanu aboowe, waxaa jira wiil aan iskoolka wada dhigano oo ayaan leh la yiraahdo. Farxaan oo warka sugulla ayaa yiri haye maxaa ku dhaca Ayaanle, miyuu dhintay? Fartuun waxay tiri cuudu billaahiye maya ee naftayda ayaa u dhimanayso. Farxaan oo ama kaag ka soo haray doonaya inuu hadalkeeda wax badan kasii ogaado ayaa yiri bal ii sheeg Ayaanle waxa uu noo yahay iyo sababta ay naftaada ula dhimanayso. Fartuun inta ay qalbigeeda gacanteeda saartay ayay tiray waa xubbi uulahaygii, waa naftayda, waa jecelkaygii koowaad ee isoo mara la'aantiisna nolosha dhadhan ma laha. Farxaan oo markaan quus istaagay ayaa yiri waan ku fahmayaa, ma ii sheegi kartaa waxa aan ku qaban karo iyo meesha arinta igaga furan? Fartuun waxa ay ku tiri waxaan rabaa in aad talo iga siiso. Farxaanna waxa uu ku yiri talo sidee ah? Haddaba goordhow qaybta labaad ayaan idin soo bandhigi doonaa. haddii uu muuqaalkan ku xusgeliyay fadlan like saar, subscribe noo raaci si uu markaasi gambalaalkana furo si aad ula wadaagto muuqaalada mar walba aynu soo dhigno. mahadsanid.